حقك بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalaha Soomaalida meel kastoo joogtaan si walbo aad noo dhageysanaysaan qaab walbo aad noo daawanaysaan waxaan idin leeyahay maalinka haydin uu wacnaado. magacaygu waa Ismaaciil Xasan Arax. haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqanayso channelkan fadlan walaal macaan nagu soo biir subscribe kana nagu caawi. waa the only way you can help us in the growth of this YouTube channel. haddii aad ka mid tahay asxaabteennii qaaliga ahayd ee intaana soo support garaynaysay ee videoga share garaynaysay ee ka qayb qaadanaysay participationka faraha badan sameynaysay, haddii aad ka mid tahayna maqaayadda like-teeda yaan ku wada hadlin. horta like-ta Soomaali Maxamed yaan ku wada hadlin. horta subscribe-ka aan ku wada hadalno, laakiin like-ta maya. like-ta noo taabo. like-ta haddii aad taabatid wuxuu videoga ayrada YouTube channelka wuxuu sameynayaa meel dheer buu gaarayaa videoga. haddaba aad baan uga xumahay guys, maalmihii ugu dambeeyay for the last 2 days waxuu mana post garaynaynin. xoogaa I was quite little, you know, I was just busy with some other work. marka caawayna sidaad igu barateen mar walba wixii miiska yaallo ee cusub baan idinla wadaagi jiray. maalmihii ugu dambeysay yaan maalmihii ugu dambeeyay ku oranayn labadiiba halkii maalin ugu dambeysay for the last 24 hours waxaa qabsaday baraha bulshada maama Khadiijo Diiriye oo cunug yar baa magaalada dhan qabsaday. social baraha media meel kastoo booqataba arrintaas looga hadlayaa. horta Soomaalidu waxay tiraahdaa qof walba siduu wax u arko, haddii wax loo qaadi lahaa ayaan darri aan lahayd. marka waa daawaday videoga maamada ay soo dhigtay, waxay soo dhigtay facebookgeeda marka hore. haddana waxaa dhacday falcelin ay Soomaalidu ka falceliyeen arrinka isaga ah siyaabo kala duwan. marka iyadoo waqti badan uusan ku jirin baa waxay samaysay inay ka bixiso videogii, way ka saartay immediately. marka waxaa la isku haystaa maama Khadiijo Diiriye may silcinaysaa cunugan yar mise way korinaysaa oo way ka taxadaraysaa oo Ilaah kuma darnaadee waa wanaagiisay ka taranaysaa. waa wax labada wax la isku haysto. horta maama Khadiijo Diiriye waa qof weyn oo Soomaalida sharaf iyo magac ku dheeleh. haddii dhanka dowladda la dhahana waa qof weyn oo aan garanayno, qof walba garanayo oo Soomaaliya uu garanayo. waa qof Ilaahay kuma darnaadee Soomaalida meel weyn ka joogo. wixii markaadan information badan ka haynin oo sawir aad aragtid oo Ilaahay kuma darnaadee isla markiiba aad reaction samaysid, waxay noqonaysaa wax ku bees garaysay aragii, laakiin wax research maadan sameynin. marka arrinkan horta maamada sidaan warbixinta ku helayo dhakhtarka wuxuu u qoray ilmaha caruurta cunuga yar in la jimicsiiyo. sidaad u jeedaanba madaxiisa qortiisa isma celin karayso, which means wuxuu u baahan yahay jimicsi badan in la siiyo, in lafaha la kala saaro. qofka jimicsiga la kala bixidoos oo kale, qofka bini'aadanka Ilaahay kuma darnaado cunuga markuu xanuunsan yahay oo kale wax badan bay u kordhisaa. marka waxay ahayd wax la dhaho Englishka ay ku dhahaan recommendation Khadiijo Diiriye la siiyey oo uu siiyey dhakhtarkaa siiyey oo Ilaahay kuma darnaaday arrintaas ku sameeyay. of course dhakhtarka hadduu ku dhaho waxaan samee waa sameynaysaa, that is the fact, you know, whatever he tells you to do is what you're gonna do, right? wax walbuu kuu sheegay waxaa sameynaysid waay. marka maamada cunugaas ayadaa soo waday asagoo Ilaahay kuma darnaado hooyii aabba aan lahayn, ayadaa soo korisay, ayadaa waqti badan gelisay, ayadaa Ilaahay kuma darnaadee intaasna waxay u sameynaysay bini'aadanimo iyo Ilaahay kuma darnaadee. marka maama Khadiijo Diiriye waxay mudan tahay inaan ku ammaano. horta wixii meeshaas ka jiro oo Ilaahay kuma darnaadee oo labadooda u dhaxeeyo oo yani inay silcisay in kala
macnaha ma ogaan karno annaga uguma dhowin oo dadka lama deganin laakiin annaga waxaan jaaji garayn karnaa waxay tahay what we can see from outside iyo qofka weyn ee caruur cunuga haya marka waxaan videogan igu qasbay inaan soo duubo maamo Khadiijo waa qof weyn oo maamo Soomaaliyeed waa ilaahay kuma darnaadee waa qof mas'uuliyad qaran qabatay waa qof mas'uuliyad weyn lagu aamini karo marka videogan muhiim buu yahay dadka in la wadaago oo ilaahay kuma darnaadee xaqiiqda dadka loo sheego cunugan yar waa cunug u baahan caafimaad waa cunug xanuunsan caafimaadkiisana wuxuu ku jiraa in ilaahay kuma darnaadee lafaha loo kala bixiyo jirka loo kala bixiyo wax loo kala bixiyo marka waa muhiim in aad ka hadasho arrinta markaas taagan public ama dadka shacabkana la wadaagto wixii inkastoo aniga dee waa aragtideeda qof walba aragti buu leeyahay yani kuma oranayo aniga this is what should be done waa aragtideyda shakhsiyadeyda waaye intaan aan kula wadaagayo marka waxay la tahay in maamo Khadiijo aysan ka ahayn dagaal ama silcise ay ka tahay cunuga daawadiisa waa cunuga daawadiisa waxay sameynaysaa way daaweynaysaa adiga waxaad u aragtaa in inay silcinayso laakiin way daaweynaysaa intaasaan rabaa inaan idinla wadaaga fadlan asxaabta horta waxaan rabaa inaan idin mahadceliyo weliba mahadcelin ugu horeysa Allah jalla wa ala baan u mahadcelinayaa followed by you guys runtii maalmihii ugu dambeeyey videoyadayda masha Allah way noqdeen viewska I was very happy wani mahadcelinayaa subscribe-ka Soomaalidu horta waa dad deeqsi ah waa dad ilaahay kuma darnaadee waxaan ku faraxsanahay inaan Soomaali ka dhashay wallahi I'm so proud of you guys I'm so proud of you videoyadii maalmihii ugu dambeeyay aan soo duubayay aan soo gelinayay markaan arko viewska subscribeska things went viral man that's great it had been doing wonderful and I'm very proud to be a Somali person you know that marka aad baan ugu faraxsanahay qaabka aad actually u support gareyseen channelka and insha Allah taala waxaan ka codsanayaa qof walba Soomaali oo channelka uu soo gaaray videogan marka ugu horeysa subscribe inuu dhaho 2 uu like gareeyo 3 uu share gareeyo 4 comment uu bixiyo waa muhiim bay noo tahay waa horumarka videoga aad baan idin salaamayaa assalamu calaykum wa rahmatullahi taala